أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waa jimce 6 jamaadul uula 1443 hijrada 10 Disembar 2021 miilaadiga. waxaan joognaa kacbada agteeda. waxaadna u jeedaa shariif calawi cabdiraxmaan almixdaar oo ku tukanaya maqaamu ibraahiima sida ay nacamartay aayadda 125aad ee suuratu albaqara oo ilaahay ku yiri وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. waxaad u jeedaa wejiga kacbada oo ah dhanka uu ku yaallo albaabku, waxaana ka soo horjeeda maqaamu ibraahiima oo ah raadkii nebi ibraahim calayhi salaamu markay isaga iyo ismaaciil kacbada dhisayeen. dhagaxaas ayuu ku istaagay, markaasuu dhagaxu dhinacuu rabo ula socdaa. hadduu kor u qaadayo kacbada koruu ula socdaa, hadduu midigta u socdo midigtuu ula soconayaa, hadduu bidix rabo bidixduu u qaadayaa, ilaa raadkiisii ilaahay intuu u jilciyey ay ku hareen. waa in ka badan 5,000 oo sano raadkii ilaa maanta waa jiraa, waana intaas gacantaa la marinayo laga barakaysanaya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.